maayir ku-xigeenka ahna kusimaha maayirka magaalada ceerigaabo saalax ismaaciil cabaas iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada ceerigaabo siciid cumar caabi ayaa maanta xafiiskooda kulan kula qaatay gudida korjoogaynta mashaariicda hay'adda tisbalas ee magaalada ceerigaabo waxaana kulankaasi oo ujeedadiisu ahayd isbarasho u dhaxaysa gudida korjoogaynta mashaariicda ay hay'adda tisbalas ka fuliso magaalada ceerigaabo iyo sidoo kale shacabka iyo bulshaweynta ku nool magaaladaasi oo nuxurka ujeedadiisu noqonayso sidii ay uga wada shaqayn lahaayeen ilaalinta mashaariicda laga fuliyo ceerigaabo kadib markii uu soo dhammaaday warbaahinta la hadlay nadra cumar jabaabul faadumo xaaji xasan sahra isdeldel maxamuud cismaan iyo qamar taleex oo dhammaantood ka mid ah gudida korjoogaynta mashaariicda hay'adda tisbalas ee magaalada ceerigaabo. warbaahinteedan maanta waxay ku socotaa shicibka ku nool magaalada ceerigaabo taasoo ah inay naga bartaan bulshadooda kale annagoo ah gudidii ay dowladda hoose u magacaabatay inay la shaqeyso hay'adda tisbalas waxa loo baahan yahay in bulshada iyo gudidu si wada jir ah u dhisaan xiriirka joogtada ah si aynu u qabsano wax dhaxalgal ah una soo saaro natiijo muuqata waxa loo baahan yahay bulsho caawisa gudida korjoogteynta mashaariicda tisbalas si mutadawacnimo ah qorshaha loo dhan yahay wuxuu si taxadir leh u qaabeeyaa xaqiijinta hanaanka gudida isu imaatinka bulshada si baahiyaha looga wada qayb qaato gudidu wuxuu isku xidhaa dowladda hoose iyo bulshada looga jawaabo baahiyaha taagan ama kuwa soo socdaba annagoo ka shaqayn doona laamiyada ay noo sameeyeen hay'adda tisbalas laamiyadaas oo ah kuwa aynu inaku leenahay gudida tisbalas ee korjoogteynta mashaariicda shaqadeedan waxay ka bilaabaysaa wadadii ay samaysay tisbalas ee ay degmaduna ku darsatay contributionka oo wadada iminka ceerigaabo waxay u taqaanaa bariya galbeed xaggaas ku yimaada xaggana way tagtaa marka bariya galbeed baa iminka la yiraahdaa wadadaas iyo mashaariicaha dambe ka dambeeyaba way korjoogteyn doonaan waajibkuna waxa weeye in bulshada ku wacyigeliyaan wadadaas sida u ilaashan lahaayeen ama mashaariicda loo qabto sida u ilaashan lahaayeen waayo iyaga ay waxtar u tahay waxaanu haddaan nahay anigoo ku hadlaya afkii bulshada oo ah gudidii ay golaha deegaanku u xushay inay ka shaqeeyaan horumarka wadooyinka iyo shaqooyinka hay'adaas qabanayso waxaan anigu ka wakiila bulshada dhinaceeda anigu ballan qaadaynaa inay bulshadu diyaar u tahay inay ilaashato wadada nadaafadeeda jiritaankeeda dirbeerideeda iyo ilaalinteeda iyana inay u soo diyaar garoobaan oo la gartaan horumarinta looga jeedo degmada inay horumarto oo ay ka mid tahay wadada la magacaabay ee bariyo galbeed ama saylada in la ilaaliyo oo ay hay'adda tisbalas samaysay iyo dowladda hoosena qayb ku dartay gudida u dhaxaysa shicibka iyo tisbalas inka laynoo sameeyay ama laamiyada quruxda badan ee bilicda magaalada u sameeyay waxa weeye badhna tisbalas baa samaysay badhna dowladda hoose magaaladeena waxa weeye magaalada dalxiis waa magaalo aad u qurux badan marka waxaanu u baahanahay shicibku inay bilicda magaalada ay ka shaqeeyaan waxay ku darsanayaana ay ku darsanaan qurxinta ay haday dhireynta tahay iyo haday nadaafada tahay iyo waxa laale wixii magaalada quruxdeeda bilaayaba aad iyo aad baan gudigan ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ee ula shaqeynayaan dowladda hoose ee hawlo fara badan nooga kafaala qaateen ee isugu duuban yihiin waxaan leenahay dadweynaha si wada jir ah ula shaqeeyo intaasi kadibna waxaa iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada ceerigaabo siciid cumar caabi iyo maayir ku-xigeenka degmada ceerigaabo ahna kusimaha maayirka saalax ismaaciil cabaas iyagoona gudidaasi uga mahad celiyay howlaha ay u hayaan waxaanu halkan aanu ugu qabanay shirkan inaanu ku shaacino gudida korjoogteynta mashaariicda tisbalas oo in badan hadeerto la siinayay tababar si hawsha ay qabanayaan ay ugu fududaato runtii waa gudi aan oran karno waa gudi hawlkala hawshii loo igmadayna aanu rajeynayno inay ka soo bixi doonaan dadweynahana waxaanu leenahay waad aragtaan baan u malaynayaa wajiyadooda inaad la shaqaysaan waayo waxay dadka kan loo igmaday inay wadooyinka laga shaqeeyay ee hay'adda tisbalas ama USAID labaduba ay inoo qabteen inay waxyaabaha dhibaatada ku ah
ay haddii ilaahay yiraahdo dadka ka wacyigeliyaan isxilqaanka weyn ee aad samayseen u diyaargarowga horumarka degmada oo aad isu xil saarteen inaad wixii awoodiina wax ka qabataan bulshadeena reer Ceerigaabo iyo cid kasta oo arrintaas waxna kaga xidhan yihiin aad ku tala gasheen inaad idinku noqotaan kuwa u hadla oo qayliya oo la socda idinka oo raacaya nidaamka sharci ee degmada waa idinka mahadcelinaynaa tan kaleeto waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay'adda USAID oo wax badan ka qabatay degmada tan mar hore iyo mar dambeba iyadana si weyn baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay wixii horena waad noo qabateenna degmadu waa idinka mahadcelinaysaa wixii wax dambena waa idinka rajaynaysaa oo waliba waxaanu idinka rajaynaynaa inaad wixii hore wax ka badan oo ka miisaan badan haddii ilaahay raalli ka noqdo aad nagu soo kordhisaan maadaama aanu nahay degmadani ay ka soo baxday shuruudihii lagu xidhay oo ahaa ka qayb qaadashada contributionka cabdiraxmaan axmed ilsar star TV Ceerigaabo.